waftigan uu hogaaminaya gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanada laasada cawo iyo deegaano kale oo hoos yimaada dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi taageerayaal iyo shacabka kala duwan ee ka soo jeeda deegaanadaasi ayaa ka qayb qaatay soo dhaweynta gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye magaalada Taagooyadu ilaa 15 kiiloomitir u jirta deegaanka laasada cawo ee loo qoondeeyay si weyn loogu soo dhaweeyay ama lagu qabto munaasabada soo dhaweynta ayay dadku istaxeen iyagoo halkaasina ruuxaya calanka astaanta waa xisbiga kulmiye sidoo kalena ku dhawaaqaya erayo iyo halku dhigi ay ku soo dhaweynayaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo waftigiisa min murqaamayo madabki ku yiri madaxweyne noqoyo loo malayn musabihiyo magaca jiro dadkaynu dhexsan ka rajinayo musabihiyo magaca jiro madaxdiina qoysku duubaniyo musabihiyo magaca jiro gudoomiyaha ayaa intii aanu soo gaarin magaalada laasada cawo waxaa si weyn uga soo galbiyay xadka u dhaxeeya gobolada saaxil iyo Maroodijeex mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera intaasi kadibna waxay waftigu ay soo gaareen magaalada laasada cawo ay halkaasi kala kulmeen soo dhaweyntii ugu ballaaneed oo ay isugu soo baxeen kumanaan dad oo ku dhaqan deegaanka laasada cawo iyo nawaaxigiisa iyagoo halkaasina gudoomiyaha erayo iyo heeso kala duwan ku soo dhaweeyay gudoomiyaha ayaa socdaal luga ku soo dhex maray magaalada laasada cawo intaasi kadibna waxaa loo soo galbiyay goob loogu talagalay in lagu qabto munaasabada soo dhaweynta gudoomiyaha iyo waftigiisa iyadoo ay halkaasina hadal ka soo jeediyeen maamulka iyo mas'uuliyiinta deegaanka laasada cawo salaadeen waxgarad uqaal garaado iyo dadweyne kale oo marti sharaf oo dhamaantoodba si weyn u soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo waftigan uu hogaaminayo waxaana hadaladoodii kamid ahaa ayaa waxaan leeyahay soo dhawaada soo dhawow musarraxa madaxweynaha soo dhawaado ayaan leenahay si sharaf leh ayaan u soo dhaweynaynaa oo mid wada ah oo meel ka soo wada jeedna codkana inaanu sidaa ugu ridnaa baan rajaynaynaa insha allahu tacaala markaa waxaanu leenahay dhammaantiin mas-uuliyiintiinnuna soo dhawaada mudana gudoomiye ku soo dhawow si kalgacal leh oo muxubbo leh oo ehelnimo leh oo tolnimo leh oo xusbinimo leh oo kulmiyanimo leh ku soo dhawow baan ku leenahay gudoomiye waxay dhashaa madaxweynihii saddexaad weey madaxweynihii saddexaad weey weligeedba madaxweynayaashay dhashaa cigaal baynu ogeyn waynu halkaynu uga ololayn axmed yuusuf yaasiin baynu ogeyn waa halkii aynu uga ololayn insha allahu madaxweynihii saddexaad ayuu noqon doonaa geesiga ciilturuu noqon gobaahiin leh geel baa marti leh gacan ninkeedaa leh maamuus u gaariyo tolnimo garasho laasaale wabilaahi tawfiiq innaga musharaxa soo maaha waa ku mahadsantiin ma maqli karo qof damboole codkaynu hadhow bixin doona war innagaa cod doonaynaa markaa muuse waa ninkayna la yaalay inala joogay ee dhibkaaga u warhaya ee xanuunkaaga u warhaya qodobkaana uu dheeryahay qodobka saddexaad waxaa haddii aan macaanku jirin qaraarka lama ogaadin muuse inta shakisan ee aanu annaguba ka midnahay waxaan leeyahay ninkii colaad arkay baa nabadda la keeni karaa waad mahadsantiin suldaanka guud ee beesha ciise muuse anigoo afkiisii ku hadlaya waxaan ballan qaadaynaa inaannu codka siino muuse biixi cabdi degmo kasta oo beeshu degto uu majority ka heli doono 80% hadday ugu yaraato madaxda uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi ahna musharaxa madaxweynaha mustaqbalka dhawaan idhaahdo degmada laaso ama laaso barako magacyo badan baa la sheegay maanta laakiin degmadan oo ah degmadii layga soo doortay ee aan ahaa xildhibaanadii laga soo doortay waxaan leeyahay horta sida wanaagsan ee u soo dhaweyseen waftiga waan idinka mahad jeedinayaa ee aynu u sii shaqaynaynay muddadii waftigu uu gobolka soo maray ee uu hargeysay noo dhaafay ilaa iminka
gudoomiyaha golaha deegaanka ee Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed iyo siyaasiyiin kala duwan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo wafdigan uu hogaaminayo gudoomiyaha ama madaxweynaha mustaqbalka maalinta dhow reer Saaxil waxay ku wareejiyeen way maalinba u gogol fidiyeen guryahoodii bay maalinba u gogol fidiyeen anagu mubaayacadii baanu diyaarunahay oo aanu marwalba ku leenahay waxa naga ballanaa oo naga dhaara oo aanu kugu dhaaraynaa inaad madaxweynaha iyagii tahay mustaqbalka waxaanad maanta baaq u tihiin ood caddayn u tihiin ummadda gobolka Saaxil inay diyaar u tahay inay doorashada uu ku guulaysto Muuse Biixi Cabdi ilaahay baan uga baryaynaa gudoomiyaha ugu horeeyay ee xisbiga kulmiye ee degmada Berbera Muuse Jaamac oo golaha dhexe ku jira inuu halkan ka soo jeedo degmada ka soo jeedo oo markaa xisbiga ururka oo kulmiye urura xisbi intaan u guurin taasina waa taariikh lafteeda aynu dheernahay waxaynu maanta ballan qaadaynaa inagoo ah degmada Laasaddacawo iyo nawaaxiga ay xukunto inaynu maanta ku ballan qaadayno halkan inaynu siin doono codka musharaxa xisbiga kulmiye siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen wasiirka hore ee maaliyadda ee Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Samaale wasiirka hore ee arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Maxamed Aran Cade Ambassador Hussein Cali Ducaali Cawil oo isaguna ahaa wasiirka maaliyadda ee dawladda oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye iyagoo sheegay in ay habboon tahay in la dhiso gudoomiyaha xisbiga kulmiye taariikhdu nabsabay leedahay way heelisaa waxa loo baahan yahay inaanu dadaalno oo waliba dhalinyarada ay aad u dadaalaan oo aanu hubinno Muuse Biixi warashaxin waa nin dalka lagu aamini karo waa nin go'aan adag waa nin isku kalsoon waa nin halgankii dabar u yahay kulmiye cod weyn buu ku soo baxo boqolkiiba 50 ahaa doorashadii ugu dambeysay doorashada imika uu galayna si sharaf iyo karaamad u jecel yahay inuu u tartamo isagoo murashaxiisu yahay walaalkeen Muuse Biixi Cabdi oo boqolkiiba 100 aan kalsooni ku qabno oo dhisayno oo dadka deegaanka iyo gobolka ka soo jeeda ay hormood u yihiin dhismihiisa waxaynu maanta leenahay waxaynu wadnaa Muuse Biixi Muuse waxaanu leenahay waxaynu doonaynaa sida maanta ay Soomaaliland tahay si ka sii wanaagsan inaad u hogaamiso markii uu Muuse kay halganka soo galay dhowr 80kii doorta uu karayay inuu Mareykan iska joogo iska raaxaysto sida rag qaar lamid ah isaga ay sameeyeen oo go'aan adag buu qaato xilli dalkiisu u baahnaa ayuu u yimid oo isaga oo karaya inuu dalkaasi Mareykanka ay nolosha fiican ku noolaado halka horta waa mujaahid weyn buu ka yahay horta qofka laga qaado maaha wasiirka wasaaradda beeraha ee Soomaaliland Maxamed Awdaahir Ibraahim oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay wasaaraddan ay wax weyn ka qaban doonaan deegaanka Laasaddacawo isagoo ah deegaan beeralaya waxaana wasiirka hadaladiisii ka mid ahaa waxay qaban doontaa beeraha oo idin kala shaqeyso geedka garawaaga oo mashruuc u sameeyso ay dhuxusha ay ku dhuxulayso iyo xoolaha ay idin kala shaqeyso gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ahna musharaxa xisbigaasi Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo isagoo halkaasi ka hadlay ayaa si weyn uga mahadnaqay soo dhaweynta ballaaran ee ay u sameeyeen dadka ku dhaqan deegaanka Laasaddacawo waxaad inoo sheegaysaan inaad tihiin dad dalka Soomaaliland la xajecelo kale oo waxaana leedahay ilaaliya oo ku faraadayga oo difaaca qarannimada Soomaaliland waa gudoonay fariinta labaad ee noo diraysa soo dhaweyntiina waxa weeye inaad tihiin dad aqoon iyo xadaarad leh oo doonaya dal horumarsan iyo dal dhisma waxaana leedihiin dalka hawlo badan iyo dhaliilo badan baa ka jira dhisa oo meel walba gufeeya oo dalku ha noqdo mid horumar oo cadaalad ku dhisma taana waa qaadan tasaxaadu waxaad noo sheegteen inaad tihiin xuduntii Soomaaliland oo maanta Saaxil gobolka la yiraahdo uu yahay gobolka Soomaaliland oo dhan isku xidha oo Soomaaliland qof waliba yimaado oo dekadii ugu weynada dalku taalo waxa noo sheegteen inaad tihiin dad u bislaaday inay dadka Soomaaliland oo dhan soo dhaweeyaan oo gacan qabtaan taana waa gudoon fariintiina waxay noo sheegaysaa soo koobaysaa inaad tihiin
dad yaqaana maamulka iyo dawladda iyo siyaasadda abiya aabba u leh fariinta u dambaysa waxaan doonaynaa dawlad wanaag hufan musuqa ka hufan tacliinta hore u marisa biyo keenta magaalada Berbera ka dhigta mid la tartanta Dubai iyo dekedda haweeneyda caalamka taana waa qaadanay gudoomiyaha iyo waftigiisu waxay socdaal ku mareen deegaanada Taaga Bureeqa iyo sidoo kale deegaanka Laasada Cawo iyo deegaano kale oo hoos yimaada gudoomiyaha iyo waftigu hogaaminaya ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu socdaal ku tagi doono deegaano ka mid ah gobolka Saaxil Muxtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Laasada Cawo